daawad maxaad kala socotaa kuwa South Africa iyo siday u ugaarsadaan Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda ee u soo waraan goobaha ganacsiga ama hantidooda iyagoo maaragtay aan waxba iskaga tirnayn markaas oo waxay doonaan ka sameeya tugadaas hadda waxay soo wareegtay markaas Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah oo gaarigooda roganaya iyagoo maaragtay joogo goob location ama location hadda waka saddex nin baa soo wareegtay tugada South Africa badana wax isku raacda saddex nin wax ka isku raacdo koofiyadana waa ku caan koofiyadana way qaataan maadaama wadanku yahay wadan qoobe ah hadda waa kuwa tugadii hadda saddex nin labadii nin ay weeshaha ay gaariga roganaya way galeen way soo wareen hadda waa kuwa gaariga laga soo rogay wiilka khamiiska wata iyo wiilka kale overcoat wata suwaalkii shaabka isweegay buluuga dharka shaqaalaha wata gaariga laga soo dejiyay hadda tugadii wata gaariga way galeen ninka dhulka taagan ee suwaalka madow laakiin waa tuug wuxuu hubinaya gaariga alam ku jiray in kala wax alama oo macnaha uu gaarigu waxa niban yahay samadada karin markuu hubiyaan dhaqaaqo ayuu gaariga fuulaya wata Soomaalida maalin waxa loo geystaa dhacaad fara badan dhactooyo naf iyo maal bale iyagoo maaragtay aan ku baraarugsanayn ama ilaamikada aan toosin wata hadda hantidoodii gaarigoodii horta lagu xisbiyo uga taagan alxamdulillah mar haddii ka caafimaad qabaan ama ka nabad qabaan wax khasaarayaga aan soo gaarsiin tani maaha dhacdooyinka lifka ah ee hadda u dambeeyay ee ka dhacay lifkayaan wadnay hadda u dambeeyay ee ka dhacay South Africa Soomaalidu kuma baraarugsana khasaarahan naf iyo maal bale maalba soo gaaraya kamana waan toban goobaha location-ka ee ganacsiga iyagoo maalba naftooda iyo maalkooda ku waaya haddaba daawada haddii aad daawatay barnaamijkan fadlan subscribe goobaha halkan sabro channelka